الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى رمضان كان هينور لما يسترو رمضان كيسا كلنا إلهي سبحانه وتعالى نبض يا نحريس يا بشبش يا برواقو الله ينو قارسيو حلي أمدني صوماليات يا ودن كانينا إلهي سبحانه وتعالى نبت قليو هينو صو دبالو أو هينو قلي إن شاء الله أمدنا ميلان جوننا الله ينو بدباديو caawa waxaa bilowday bishii ramadaan ayaa inoo bilaabatay bixamdillaahi wa tawfiiqihi annagu maraykanka ayaan joognaa dabcan hadda ayaan salaadii cishaayiga iyo salaadii taraawiixda ayaan ka baxnay reer soomaaliya reer africa iyo dadka ummadihii naga horreeyeyna dabcan way sooman yihiin oo maalin bay ku jiraan maalintii ugu horeysay bisha ramadaan waxaan usoo galay walaalahayow oo isoo jiitay runtii aan rabo idinkuna inaad ila dareentaan bal xaqiiqatan waxaad moodid inay tahay baraarujin rabbi subxaanahu wa tacaala ummaddiisa uu baraarujinayo aada iyo aadna in la fiiriyo oo ictibaar lagu fiiriyo mudan tadabburna loo yeesho oo qur-aanka marka la aqrinayo laga fikiro ayaan ka dareemay caawa qur-aankii la bilaabay iyo salaadii aan tukanaynay rabbi subxaanahu wa tacaala suuratulbaqara marka la bilaabo waxaa ugu horeeya 4 aayadood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta uga hadlay waxaa lagu xujisiiyey 2 aayadood oo gaalada looga hadlay waxaa lagu xujisiiyey 13 aayadood oo munaafiqiinta looga hadlay waxaa aada iyo aada u cajo badan inaad ka fikirto maxay tahay xigmadda ku jirta in looga hadlo mu'miniinta 4 aayadood munaafiqiintana 13 aayadood kufaar oo gaalada oo arrintoodu iska caddahayna 2 aayadood oo keliya lagu xuso kadib markaad gudubto haddana waxaad arki qur-aanka fii suura dhan oo lagu magacaabay suuratulmunaafiquun magacooda loo bixiyey waxaad arkaysaa fii suurati tawba oo magacyadeeda ay ka mid tahay suuratulfaadixa tii fadeexadaysay ee kashiftay munaafiqiinta ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa suuratul axzaab oo allah subxaanahu wa tacaala uga hadlay qiso dheer iyo xiyalka iyo waxyaabaha ay sameynayeenna looga waramay waxay ka waramayeen dadkii salafka ahaa oo taabiciyiintu ay sheegayeen taabici kamida uu lahaa waxaan soo gaadhay adragtu 30 min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam kulluhum yakhaafu annifaaqa calaa nafsih waxaan soo gaadhay 30 ka mid ah asxaabu rasuulillaahi oo kulligoodba waxay ka baqayeen nifaaq iyo munaafiqnimo bay naftooda uga baqayeen dayib haddaba walaalayaal waxaan isweydiinaya waxaa weeye oo runtii inaan hadda kelimadan soo jeediya igu kalifay waxaa muuqata rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ina baraarujinayo waxaan ku jirnaa bishii ramadaan waxaan ku jirnaa bishii shahrulmaqfira shahruraxma shahru tawba shahrulqur'aan ayaan ku jirnaa waxaan ku jirnaa bishii ay albaabada jannadu ay furnaayeen waxaan ku jirnaa bishii albaabada naartu ay xidhnaayeen waxaan ku jirnaa bishii shayaadiinta maradadooda iyo kuwa madaxa adagba la katiinadaynayay baan ku jirnaa waxaan ku jirnaa bishii cafiga rabbi uu ku jiray oo qur-aanku soo degay waxaan ku jirnaa bishii leylatulqadriga uu ku jiray oo ka fadli badan 1,000 bilood ka fadli badan waxaan ku jirnaa bishii caaisha radiallahu canha ay rasuulka ku tiri yaa rasuul allah hadduu rabbi iwaafajiyo leylatulqadarka maxaan ku jawaabaa oo rasuulku uu ku yidhi waxaad tidhaahdaa caaisho allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannaa dheh haddaba bishaa fadliga badan walaalayaal haddii aan ku jirno qur-aanka marka la bilaabayo oo masaajida laga bilaabayo fii suurati albaqara laga bilaabayay
rabbi uu ku bilaabay mu'miniin 4 aayadood looga hadlay micnaheedu uu yahay kuwa ka mid noqda kufaar 2 aayadood looga hadlay arrintoodu way iska caddahay hadda muslim iyo gaala ayaan kala nahay oo ilaahay baa inaga dhiga muslimiin laakiin gruub kale oo qarsoon baa jira gruubkaas munaafiqiin baa la yidhaahdaa sifaadkoodu kitaabka allay ku cad yihiin halkan waa lagu faahfaahiyey suurado kale suuratulfaadixa oo suuratu tooba waa lagu faahfaahiyey suuratulmunaafiqiin baa lagu faahfaahiyey suuratulaxzaab baa lagu faahfaahiyey suurado badan baa lagu qeexay rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam calaamadahoodiibuu xusay laakiin waa sinfi qarsoon weeye waa qolo isqarin karta waa qolo adiga jildigaaga iyo maqaarkaaga iyo midabkaaga leh waa qolo luqadda aad ku hadlaysa oo ku hadlaaya waa kuwa masaajidka kula jooga waa kuwa safka hore ku jira waa kuwa sadaqada kaaga horeyn waa kuwa soomaya waa kuwa meel kastoo taagantahay oo khayr a jooga waa kuwa haddana naarta gaalada la yaqaanee gaalnimada qarsatay uga hooseeya iyagu oo kasii hooseeya yaa subxaana allah walaalayaal asxaabu rasuulillaahi nin saxaabi ah oo ilaahay subxaanahu watacaala doortay oo quruuntii mufadalada ahayd ee 3dii qarni khayrulquruuni qarni rasuulku yidhi huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum ku jiray oo rasuulka nuurkiisii la joogay oo dadka ilaahay kuwii ugu fadli badnaa waa kuwii uu u doortay inay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam la joogaan ahaa ayaa waxaa dhex fadhiyey kuwa munaafiqiina oo cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool iyo intiisii kale ay ku jiraan oo safka hore u fadhiyey oo khayraadka dhan uga horeynayo iyagu gacanta u taagayay haddana way qarsoonaayeen rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam waa loo tilmaamay magacyadoodaa loo sheegay wuu yaqiinay haddana ma uusan sheegin wuxuu baray saxaabigii la odhan jiray xudayfata binulyamaan saaxibu siri rasuulillaahi saxaabigaas oo sirta rasuulka hayay ayuu u sheegay uu yidhi hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel magacyadoodiibuu u tiriyey markaasuu yidhi waa kuwaasaa munaafiqiina asxaabu rasuulillaahi walaalayaal inta u yimaadaan cumar bin alkhataab radia allahu canhu wa ardaah baa intuu u yimaado xudayfa binulyamaan yuu odhan jiray ilaahay baan kugu dhaariyey xudayfow miyaan ku jiraa anugu kuwaa munaafiqiinta markaasaa wuxuu ku yidhi kuma jirtid adigu laakiin qof dambe uga jawaabi maayo maxaa jira hadduu qof waliba soo boodo u yidhi anuma ku jiraa anuma ku jiraa anuma ku jiraa hadda xudayfa been ma sheegayo dhowaan mid munaafiqa baa odhan ma ku jiraa markaasuu odhan waad ku jirtaa waxaana meesha ka baxaysa xigmaddii rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam markii la yidhi yaa rasuulallahi ow maad laysid oo qoorta maad jartid wuxuu yidhi la odhan maayo nebi moxamed asxaabtiisii buu laayay lay dhihi maayo laakinahum laa xada lahum wax xadi iyo wax nasiiba diinta kuma laha wallaahi walaalayaal waa wax qalbigu la gilgisho waa wax aada iyo aada looga murugoodo qof masaajidka dhex fadhiya oo safka hore ku jira oo soon iyo salaad iyo sadaqo kaaga horeeya oo haddana munaafiq ah oo xumaanti kaaga oo haddana uga horeeya oo xumaan u yimaada ma aha inaan qof shakhsi ah hadda anigu ogahay oo qof aan farta ku fiiqaayo laakiin waxaan ogahay inay joogaan masaajidda ilaahay waxaan ogahay inay safafka hore ku jiraan baan ka warqabaa haddaba waa waqtigan waxa loogu beegay ama aan kelimadayda adna ugu beegay waa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu meeshuu ka bilaabmay oo fii suurati albaqara masaajid walba lagu aqriyey oo laga bilaabayo taraawiixda waa baraarujin layna baraarujinayo war cafwii ilaahay baan ku jirnaaye aan ku baraarugna awsaaftan iyo asnaaftan iyo qaybahan ilaahay ka hadlay war qaybta aan ka mid noqon lahayn waa inoo caddahay ee ilaahay aan weydiisano wadadeedana aan qaadna waa mu'miniin wa qaybta ilaahay inooga digaayo ee tilmaamaheedii laynoo badiyey waa qaybta munaafiqiinta waxaa laga yaabaa inaad u malayso inay waxyaabo kale ay yihiin munaafiqiintu si kooban haddii loo yiraahdo rasuulku maruu tilmaamaya wuxuu yihi calaamatu lmunaafiqi halaatha idaa xadatha kadab
waidaa wacada akhlaf waidaa tumina khaana. calaamadaha munaafiqu waa 3. haddii uu kuu sheekaynayo been buu kuu sheegayaa. dadku waxaa jira beentaa dadka u sheega. haddii uu ballan kuu qaadana ballanta waa kaaga baxaya. bilaahi calaykum, meeqaad ballanta ummadda uga baxda? meeqaad maaragtay been u sheegtaa? haddii wacdi iyo ballan lala galo wuu ka baxaa. haddii la aaminana wuu khayaamaa. haddii dood idin dhex martana wuxuu isku dayaa inuu kaa reeyo oo wuu indha caddeeyaa. waidaa khaasama fajar, is oran maayo. xaqaaga hela, wuxuu isleeyahay aan lagaa raynin. adigu ka qaalib noqo. rag iska dhiciya rabbi ka baq, meel ma wada galaan baa la yidhaahdaa. marka waxaa weeye calaamaadka munaafiqa ayay ka mid tahay calaamooyinkaas. haddaba walaalayaal, baraarujintaas ayaa waxaan rabay. war ilaahay cafigiisaan rabo. qof walbo waad soomaysaa, salaad baad caawo imaanaysaa, taraawiixdii baad taagan tahay. miyaad jeceshahay inay naar ay haddana dhowaan jirkaaga cunto? miyaad jeceshahay inaad meel xun ku dambayso? waxaad u daalayseed u rafaadaysa soomaa cafiga rabbi inaad hesho? waa inaad isaga baqdo naftaada munaafiq adigu ma tahay. waa inaad u bandhigto aayaadka fii suurati albaqara. waa inaad u bandhigto aayaadka fii suurati almunaafiquun. waa inaad u bandhigto aayaadka fii suurati tawba. waa inaad u bandhigto aayaadka fii suurati alaxzaab iyo keyrkood. miyaad ku jirtaa sifaadka fii suurati almu'minuun ay ka hadashay oo 8 taqriiban sife ee mu'miniinta laga hadlay min awali suurati almu'minuun? inaad ku jirtiyo in kale naftaada u bandhig. fii suurati cibaaduraxmaan tilmaamaha laga hadlay fii suurati alfurqaan oo cibaaduraxmaan 13 aayadood taqriiban, ma ku jirtaa addoomaha rabbi uu halkaa ku xusay? ma ku jirtaa fii suurati almacaarij kuwa rabbi uu ku xusay? mise waxaad ku jirtaa fii suurati albaqara bejka 2 kuwa looga hadlay? ma waxaad ku jirtaa fii suurati faadixa suuratu tawba qeybaha dhan qolada looga hadlay? ma waxaad ku jirtaa suuratu almunaafiquun? adigu iska raadi. qof walbow naftaada u bandhig gruubka aad ka mid tahay. kitaabka allaanaad ka helaysaa safiga aad ku jirto. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa oo rabbi aan ka baryaynaa inuu mu'miniintiisa dhabtaa inaga dhigo, inuu inaga badbaadiyo nifaaq. 2 qaybood buu u qaybsamaa baa ladhaha, camali iyo maaragtay mid ictiqaadi ah buu u qaybsamaa. intiisaba inuu inaga wada badbaadiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala thabaat fii diin illaahi inuu ina siiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka aqbalaa bishaan ramadaan, inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin. dadka alla ka baqabo alla wax ka aqbalaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala muttaqiintiisa haynagu daro, munaafiqiinna allah subxaanahu wa tacaala haynaga badbaadiyo. acmaasha soonka iyo salaada allah haynaga aqbalo, iyo sadaqaadka iyo khayraadka dhan allah haynaga aqbalo. ilaahay subxaanahu wa tacaala inagoo mu'miniina oo muslimiina allah hayna oofsado. adduunkan rabbi subxaanahu wa tacaala inaguma fidneeyo. thabaat fii diin illaahi rabbi subxaanahu wa tacaala hayna siiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga inaguma fidneeyo. qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulku kuwa u shafeecay allah haynagu daro. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadeenna meelay joogtaba ha badbaadiyo. rabbi subxaanahu wa tacaala quluubtooda ha isu soo jeediyo. madaxda soomaaliyeed ee tirada badan ee isugu timid magaalada Garowe isugu yimidna ilaahay quluubtooda ha isu soo wada jeediyo. rabbi subxaanahu wa tacaala walaalnimadooda iyo ukhuwadooda allaha tuso. shaydaanka iyo aljinni walinsiba allaha ka saaro. ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagaa walaalnimadooda ha tuso. mas-uuliyadooda kuwii arki lahaa oo qadarkeeda ku qaadi lahaa allaha ka dhigo. cadowgeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala mid dhow iyo mid dheerba allah inaga badbaadiyo. ilaahay ummadeenna quluubtooda ha isu soo jeediyo. waddankeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmad iyo nabad allah inoogu soo dabaalo. inta xumaanta wadana ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga wada qabto. inta wanaagga jecella ilaahay quluubtooda ha isu soo wada jeediyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala haynagu bishaan ramadaan kuwii ku dhammaystay nabadgeliyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo. rabbi subxaanahu wa tacaala bisheeda kalena haynagu gaarhsiiyo bashbashiyo barwaaqo. jazaakum allahu khayr. intaasaan rabay inaan idinla wadaago. wabaaraka allahu fiikum. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.